warbaahinta dowladda Itoobiya waxa ay tabisay in la laayay wax badan oo ka mid ah kooxdii TPLF ee muddada dheer gacanta ku haysay talada dalka Itoobiya. waxa ku jira xubnaha la sheegay in la dilay kuwa saameyn weyn ku lahaa arrimaha siyaasadda, gaar ahaan arrimaha dibadda. waxa ka mid ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya, Atosio Masfin. muddo dheer ayuu hayay xilka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya, waxaana muddada uu xilka hayay uu qayb ka ahaa howlgallo waaweyn oo kooxdii TPLF ay maamuleysay Itoobiya ay ka fulisay mandiqada gobolka Geeska. waxa uu ahaa xubin firfircoon oo milasana ugu qaabilsanaa howlgalladii arrimaha Soomaaliya. waxa uu abaabulay qaybna ka ahaa shirarkii kooxaha Soomaalida ee lagu qabtay Addis Ababa iyo kulamadii dhexdhexaadineed ee Nairobi ee Kenya, kuwaas oo lagu dhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Masfin waxa lagu tiriyaa inuu ahaa maskaxdii aliftay federaalka qabiilka ku salaysan ee Soomaalida. waxa lagu tiriyaa sidaas oo kale inuu ahaa aabihii hindisay ciidanka Itoobiya inay galaan Soomaaliya sanadkii 2006. waxa lagu xasuustaa markii uu bilowday khilaafka u dhaxeeyay Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii dowladda ku meel gaarka ahayd, iyo madaxweynihiisii Cabdullaahi Yuusuf, inuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo si danta Itoobiya halkaasi looga eego. laakiin ugu dambeyntii diidmo ka timid dhanka Cabdullaahi Yuusuf ayay kaliftay in Itoobiya ay seegaan. waxaana Masfin iyo Cabdullaahi Yuusuf ay isku qabteen arrimaha gudaha ee Soomaaliya xilligaas oo la rumaysan yahay inay dhex martay siyaasad qallafsan oo markii dambe dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku kala dhaqaaqeen. Masfin marka laga soo tago arrimaha dibadda Itoobiya u xil saarnaa, waxa uu ahaa mafakarka dejiyay siyaasadda Itoobiya ee Soomaaliya ku wajahan. qofka labaad ee warbaahinta Itoobiya ay xaqiijisay in la dilay waa Asmalaash. waa xubin sare oo ka mid ahaa kooxda TPLF. waxa uu danjiro ama qunsuliyad ka soo qabtay gudaha Soomaaliya. waxa uu ahaa wakiilka Itoobiya ee gobolada Puntland xilli ka mid ah waqtiyada. waxa uu ahaa mid si weyn arrimaha siyaasadda ugu foogan, waxaana uu ahaa korneyl military oo xagga sirdoonka u qaabilsanaa dowladda Itoobiya. qofka saddexaadi waa Abaye Tesfaye. waa xubin sare oo ka mid ahaa hogaamintii TPLF. waxa uu soo noqday sargaal sare iyo khabiir xagga siyaasadda ah. saddexdan waxa ay ka midaysnaayeen oo ka shaqaynayeen doorashadii dhowaan ka dhacday gobolka Tigreega ee mar kale ay isku caleema saartay TPLF. dadka kale ee iyana la qabtay kaalinta afraad waxa kaga jira la xaqiijiyay dilkooda iraahdee Colonel Kirgos Hogos oo ah xubin sare oo militariga Itoobiya ka tirsanaa. waxa uu joogay qaybta mukhaabaraadka ama saadka labada dhinacba, waxauna ka shaqaynayay muddo dheer militariga Itoobiya. laakiin 4 November waxa uu goostay sida Itoobiyaanku ay sheegayaan inuu ka goosto ciidanka qaranka una dagaalamo kuwa TPLF. warbaahinta Itoobiya waxa ay kaloo xaqiijisay in gacanta ay lagu soo dhigay Colonel Gabre Meshkal oo ahaa xubin hore ciidanka militariga uga goostay, Colonel Safaha Burhanu oo isna ciidanka ka tirsanaa, Colonel Sara Aburuk Tadasa oo ahaa ciidamada militariga. dhammaantood xubnahani waxa ay joogeen saldhigga waqooyi. waxa kale oo ka mid ah Commander Gabre Kedin oo ahaa taliyihii ciidamada gaarka ee Liyuga ee ismaamulka Tigreega. waxa kale oo ku jira xubnaha la sheegay in la qabtay oo hadda gacanta ku jira Maharaton Kende oo isna ah xafiiska biyaha xubnihii ugu sarreeyay, gaar ahaan wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Tigreega. dilka xubnahan afarta iyo qabashada 5 xubnood ee kale kuwii ka sii horeeyay ee ay shaacisay warbaahinta Itoobiya waxa ay muujinayaan dhaqaaqyo cusub oo ah in TPLF si weyn loogu jabiyay saaxadda dagaalka. waxaana hadda dhiman qaar ka mid ah xubnaha la baadi goobayo oo ay ku jiraan korneyl military, madaxweynihii maamulka Debretsion Gabriel Michel, iyo waliba sidoo kale generaal uu ka mid yahay madaxii nabad sugidda guud ee Itoobiya, General Getachew Asife oo ah xubin si weyn loo baadi goobayo.